qofka inta afka la geliyo hunguriga ay socoto ayaa caloosha leegaya marka qofka tuubada leg inta uu ku jirtaa waa xubno fara badan marar fara badan oo qofka xanuun kale uu hayo u gaasir mooda ayaa jirto oo mesela ka soo qaad beerka oo kale iyo xameetida inta uu ku jirto oo hodhan ma taqaan qof markay xanuunto gaasir uu moodaya laakiin gaasir waxa u gaar ah laabjeexa calool ololka iyo xanuun ku beegan halkaas xudunta iyo laabta xawda dhexdeeda ah ayaa qofka nabar saas u qabanaya haylka sinjibiisha qorofolka waxyaabahaas oo dhan ma taqaanay way kicinayaan gaasiriga waxaan soo diyaargareeyay maanta faal casharada ma taqaanay waxaan inta badan inkastoo mawduuc kastaba muhiim u yahay oo anigu waliba aan dhakhtar ahaan aan saaro culayska مثلا meelo dadku aan culayska saarin waxaan saaraa culayska inta badan in qofku uu fahmo qaab dhismeedka caafimaadka Netherland iyo house artistka iyo isbitaalka iyo Tweedaland wax la yiraahdo waayo meesha ugu muhiimsan waxa weeye inaad fahanto qaab dhismeedka caafimaadka Netherland inaad fahanto albaabka laga gelayo caafimaadku house artistka meeshii kala uga sii baxayso isbitaalka ah standardska ah physiotherapy-ga ah iyo isbitaalka iyo ilaa ma taqaana deerdalan wax la yiraahdo oo mesela hay'ado kale ma taqaanay ah waxa kale oo muhiim ah in qofku uu ogsoonaado doorka caymisku uu ka qaato caafimaadka waayo caymisku isaga bixiya kharashka isbitaalka oo dhan isaga bixiya waxaanu soo galaa marar fara badan caafimaadka bisoo galaya dhakhaatiirta iyo isbitaaladiiba si fiican iyo si mararka qaarkood aan yara ma taqaana la dhibsan kara labadii u soo galaya si fiican waa ugu soo galayaayo kali baa lagu siinayaa yani waxaad helaysaa yani operation weyn oo ma taqaana 100,000 oo ma taqaanayay euro ah ayaad dad ku jirto ma taqaan fiirsay kale laga bixinaya adigoo kali la aaba lagu oranaya telefoonta lagu soo diro kaala iyo ma taqaan waa lagu siinaya waa faa'iido badan baa ku jirta marar badan ama dawooyinka qaar ha noqoto ama ha noqoto mitaal ahaan ka soo qaad halkan dhowr jeer hore ayaan ma taqaanay ayaan ka sheegay caymis dhakhtarka waxaan ku leenahay 10 daqiiqo qura 10 daqiiqo waa muddo aad u yar weeyaan 7 daqiiqo ee dhakhtarka marar fara badan dad saluugsan ay ka yimaad ay kala soo noqdaan dhakhtarka ma aha boolisigiisa ma taqaan ma aha isbitaalka ma aha house arts barataayga ma taqaan ma aha waa caymiska way heshiis lala galay waxyaabihi haddaad markaa fahansan tahay ma taqaanayay sida uu house artistku specialistaha kuugu dirayo sababaha uu kuugu dirayo meesha aad tegayso dawada lagu qorayo hadday jiraan dawooyin dadka loo diidan yahay qaar ma taqaan loo ogol yahay way jiraan marar fara badan xataa telefishinka waa laga soo daayaa dawooyin qaali ah oo dadka qaarna mesela loo qoro qaarna aan loo qorin waxyaabahaas oo dhan waxa si ay waxay saameynteeda badan leh ma taqaan caymiska in la fahmo ma taqaan waxaan geliyaa inta badan culays fara badan innaga lafteenu house artistka in aynu collective presentation waxa dhahaa jira inaynu ula tagno dhakhtarka house artistka ah calaamadaheena iyo qofka bukaanka sidoo uu u sheegan lahaa inuu si kooban ugu sheegto waxyaabaha isticmaali jiray waa la ugu dhan yahay iyo aan la fahmaynin ma taqaana dadka inuu ku wacyi gelino haddaad xitaa sii qorato calaamadaha aad ka cabanayso aad ku sii qorato dhakhtarka way caawinaysaa وهذا مركز أعتقد أنا على تي يقول دريد بن سو إلابي مركز اللي جو فيستين يو دكتوركم متقنا يي وكبار يو على بهاي دكتور كان إن تي صم متقنا يي ده إسلا أنت وكولي يي مركز در فضود أصيح حياته مثلا طبعا دقن كستبه كشرته وقفك إن الاحترام الشخصية دي سواء عوردي صلاة أسطورة دقن كستبه كشرته لكن هذا الله تضرب متقنا يي در أديكوا حلو متقنا وتأكد يفلانة يمد كلا يتي روبك يتي برف طبعا دقات هسه ما تقانا مركا وحيابا يكون في عنتها هاي إن قلنا أي نسيو قالنا دكتورك على بدها قوس شوكتو حتى waxa ugu fiican hadaad waraaq ku sii qorato adigina ka imin mayso adigoo la mataan meeshii ugu darreed ilaabay oo waxa waad wada sheegatay asagina waxa u tahay faal fududana mataan waqti koomba u tahay marka visitor iyo baaristu ay jirtana way u fududeynaysaa dhakhtarku inuu wadnahaaga dhageysto iyadoo waxba aanay ka xigin marka waxyaabahaas ayaan saaraa culayska sidii dadkeenu dabcan uma baahna jiil caruurteena oo kale way fahmayaan laakiin jiilkeena hore ma taqaana inta marka aan saaro waan ku celceliyaa waliba waan ku celceliyaa way ahmiyadda leedahay baan garanayaa
maanta waxaan inoo soo diyaargareeya xanuunka gastrigu Soomaalideena aad iyo aad buu ugu badan yahay waa xanuun aan filayo in dad badanna mataqaanaa faa'ida uu ku dhacayo oo hayo dadka kalena ay mesela familigiisu yihiin ay doonayaan inay fikrad wanaagsan ay ka qaataan marka xanuunkan gastriga ah muxuu yahay guud ahaan marka la isweydiiyo gastrig mataqaanaa muxuu yahay marka arrin jira aad eegayso aad baarayso waxaa la eegaa in arrinkaas uu lahaa maalan kelmad Soomaaliya oo original ah hadduu magac lahaa af Soomaali ah mataqaanaayay waad garan kartaa dadku inay yaqiineen iminka maalan dacar dhiig waxaa jira dadka marka ay matagaan oo marka matagii uu soo raaco dhiig gobollo fara badan waxaa laga dhahaa dacar dhiig baa laga dhahaa dacar dhiiggaas gastrig mataqaana weeye waa nooc waa marxaladda ugu xun ee ugu dambeysay gastrig ya karoorika mataqaana weeyaan laabjeexu waxa weeyaan horta laabjeexa inta aan u gelin maalan gastriga waxa fiican waa la badan yahay waxa fiican in aynu ogaano maalan xubinteebu ku dhacaa gastrigu xubinteebu ku dhacaa iyo dheefshiidka inaynu in yar mataqaanaa aan yar iftiimiyo intaan gastriga aanu u gelin xubinta uu ku dhaco gastrigu waxa weeye waa caloosha iyo hunguriga madow oo wax ka soo gaadho iyo marka calooshu ay dhammaato meel la yidhaaho duodenum ama 12 finger la yidhaahaa ganac miyaa lagu yidhahaa af Soomaaliga ayaa lagu yidhahaa harmarinaya saddexdaa meelood ayuu ku dhacaa gastrigu marka laba xanuun baa kala jira midna waa gastrig midna waa ulcer ama waa ulcer duodenal oo kale ulcer weeyaan waa ulcer oo waa nabar gastriga iyo nabarka waxa u dhaxeeya gastrigu nabar ma aha waxa weeyaan xuubka caloosha ayaa waxa ku dhacaya on staking baa ku dhacaya wuu hafeefanaya inflammation baa ku dhacaya kelmadahaas terminology-gaas medical terminology af Soomaaliya way adag tahay kelmado badan baa jiro runtii ay dhib ku tahay in lagu helo laakiin waxay imanaysaa hafeefasho oo kale xuubka caloosha ayaa وحكمه markaasuu bararaya markaasuu wuxuu noqonayaa guduud midabkaasoo kale u yeelanaya markuu ku jira inflammation midabkiisa caadiga ahaa ee lagu yaqiinay مثلا halkan oo kale u ekaa ka soo qaadba halkaas oo kale u ekaa waa iska bedelaya oo guduud buu noqonaya marka waa gastrig weeyaan maakhsfiir waa xuubka caloosha weeyaan maakhsfiirka waa ka duwan yahay hal nabar oo boog ah ulcer ama sphere waa boog nabar boog oo mata markaa saas oo kale yani wareegu ah ayaa caloosha ku samaysmaya marka hal nabar uu hal meel ku samaysmo oo inta badan calool weynta u badan ama u badan mataqaanaaye duodenumka marka ay caloosha mataqaanaaye dhammaato meesha ku xigta nabar uu samaysmo ayuu noqonayaa ulcer ama ulcer ama sphere uu noqonayaa marka waa wax yaro sidii nusul noo kale ayay la eg tahay calooshii markaa xuubka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waa dhammaanayaan waa xoqbayaan markaasaa qofkii dhiig uu mataqaanaa ma tagaya marka ulcerku waa khatar weeyaan mataqaanaa waa khatar weeye xubinta markaa gastriga iyo ulcerka uu ku dhacaya waxa weeyaan waa caloosha waan sheego taariikhdeena mesela marka la eego xanuun gaalaad ma aha waa dacariig baa la yidhaahaa gastrig baynu odhan jirnay oo waa xanuun mataqaan la garanayo inkasta oo reer magaalka uu u badnaa iyo laabjeex marka magaalada oo qura mataqaan reer magaalka ma aha waxa miyiga maadaama dacariig la yidhaaho reer miyiga uu ku dhacaya tuulooyinka gobolada iyo magaalooyinka waaweyn inkastoo magaalooyinka waaweyn uu aad iyo aad ugu badan yahay waxaa keenaysa garashadii dhakhaatiirtii iyo stress waan ka hadli doono oo qayb weyn ka qaata mataqaanaayay gastriga iyo ulcerka labadaba marka taariikh ahaan waa waxaynu lahaan jirnay guul weyn baa laga gaadhay gastriga lianno waagii hore waa la qali jiray gastriga dawo ma u lahayn waxaa lagu daweyn jiray dadka maalan diet baa lagu daweyn jiray in maalan qofka basbaaska laga mamnuuco wixii kul laga mamnuuco dawadiisuna waxay ahaan jirtay kontameeyadii iyo lixdameeyadii qalliin marka dadkii hore uu ku dhici jiray مثلا ninkii 60 jirka ama 70 jirka reer magaalka ahaa digfeer halkaas waa laga qali jiray
qalliin baa mataqaana iminka maqli maysid hebel waxaa la geeyey Lineberg Second House oo gastric baa laga qalay ma maqlisid iminka laakiin 70kii iyo 70kii iyo 69kii caadi bay ahayd hebel gastric baa laga qalay marka waa la qali jiray neerfayaasha ayaa la goyn jiray si mataqaana acid ay u yaraato qalliin buu ahaan jiray inta badanna waxaa la siin jiray qofka dawooyin la yiraahdo anti acid marka waa badax waxa weeyaan acid ayaa la barxaya kama ay xoog badnayn ku xoogaa yaro caano dhay ah oo aad mataqaana qofka ka bisiiso oo qaboojisa mataqaana kama ay 1970 iyo 70 bilowgeedii ayaa waxa soo baxay dawooyin la yiraahdo Tagamet iyo Santac iyo ayaa soo baxay dawooyinkaas marka anti acid ma ahayn waxa ay yareynayeen acid caloosha mataan ku samaysanaysa marka caloosha gastriga maxaa keena gastriga waxa keenaya caloosha waxay soo deysaa acid la yiraahdo hydrochloric acid waa aashito aad u kulul xuubka caloosha qudhaan iska xijin karaya acida caloosha ay soo deynayso waxaa loogu talagalay raashinkii markaad calaaliso oo walkaad ku calaaliso in ay dheefshiidkii ay sahasho oo way burburinaysaa acida haddii ay ku badato caloosha oo intii la doonayay levelkii ay dhaafto waxay xoqaysaa xuubkii caloosha kaasaa keenaya mataqaan gastric meesha ay iska soo galaan marka waxaa marar badan dhacaysa acida ku badan inay keenayso gastriga iyo bacteria aan berigi hore la aqoonin laakiin waxaa la ogaaday sagaashimeeyada bilowgeedii bacteria la yiraahdo Helicobacter pylori oo waliba u badan Soomaalida iyo Afrikaanka u badan ayaa soo baxday bacterias waxay ku jirtaa xuubka caloosha hoostiisa marka bacterias keenayso waxay qodaysaa mataqaanay xuubkii sare caloosha berihii hore waxaa dhakhaatiirta dhib weyn ku ahaan jirtay marka la siiyo dawooyinkii gastriga xanuunkii ma baxayo laano acid mooyaane iminka waxa yimi arrin kale oo labaad oo keenaya waa bacteriyadii dawadii hore marka la siinayay bacteriyada may dilaynin acid bay yareynaysa ama ay baabi'inaysay mataqaana bacteriyada markii la helay ayaa waxa la ogaaday in ay jirto bacteria keenaysa gastric marka iminka dawo kale oo aan ahayn tii hore ayaa loogu daray waxa la isku daraa antibiotic iyo dawooyinkii gastric loo qaadan jiray omeprazole iyo pantoprazole iyo waxa loo raacinaya qofkii dawooyin antibiotic ah marka acidina waa yaraanaysa germskii iyo bacteriyadiina waa la dilaya markaas maanta qofkii uu kaga bogsanaya marka guulo waaweyn baa laga soo gaaray xagga dhakhtarnimada gastriga sanadihii ugu dambeeyay marka mesela laga hadlayo 30 sano ugu dambeeyay oo kale guulo laga soo gaaray gastriga dib mataqaanay loo qali maayo operation weyn la geli maayo dawooyinkaas mataqaanay ayaa daweynaya maxaa keenay gastriga waxa keenaya acida iyo bacteriyada acida waxa u sii badan hadii qofka uu fikir badan uu leeyahay acid waa soo badanaysa fikirka badan wuxuu soo kordhinaya acid ayuu soo badanaya stresska iyo fikirka iyo warwarka iyo cabsida door weyn bay ka qaataan jirkeena soo shaqeynayo hurdadu waa ka tagaysaa abitaadku waa ka tagaya saameyn bay ku yeelanaysaa saameynta badan ku yeelanayso calooshi waxa ugu sii gaar ah in acid mataqaana ay sii badiso oo dad badan baa dadka gastriga qaba way yaqaanaan qofku mesela maalinta uu yahay farxaan iska yahay murtaax iska yahay dib mataqaan ma qabo arrin baa loo soo sheegaya ama waa dagaalamaya ama nerves buu noqonaya marka uu cadhado soo markii markiiba waa ku kacaysa mataqaana nabarkii marka waxaad fahmaysaa in cadhadii iyo stresskii iyo xanuunkii ay cilaaqaad ay leeyihiin qof kasta gastriga qan uu yaqaana marka qofku yahay murtaaxna waa degaysa marka fikir iyo warwar uu kugu soo kordhana mataqaana ama aad iyo aad u kacsan tahayna waa kugu kacaya mataqaana gastriga inta ugu badan ee keenaysa waxa weeyaan acid qofka ku badata bacteriyada iyo stresska ayaa inta badan ugu badan maxay yihiin calaamadaha iyo astaamaha lagu garto gastriga inkasta uu yahay xanuun dadkeena ku badan oo aad loo yaqaan hebel gastric buu qabaa oo qofkii mataqaanayay aan qabin xitaa sheeko badan ka soo gaarayso kii aan qabin ama walaalkii baa qaba ama aabihii ama qof mataqaanayay family ka mid ah calaamadaha haddaan soo koobo mesela 10 calaamadood baa ugu muhiimsan gastriga waxaa lagu gartaa marka uu bilow yahay laabjeex biyo kulul baa qofka mataqaanayay
inta halkaa dhuunta dib u soo gelaya laabjeexaasaa qofka mataqaanaa kusoo noqnoqonaya waxaa laabjeexa markaas wehelinaya oo ka dambeeya caloosha xanuunta halkaa bog oo ku beegan meesha mataqaanaa ay feeruhu ku dhamaadaan halkaasaa qofka mataqaanaa xanuunaysa way jirtaa inta uurku jirtaa waa xubno fara badan marar fara badan oo qofka xanuun kale uu hayo u gaasiri mooda ayaa jirta oo مثلا kasoo qaad beerka oo kale iyo xameetida inta uu ku jirto oo hodhan mataqaan qofka markay xanuunto gastric buu moodaya laakiin gastric waxa u gaar ah laabjeexa calool ololka iyo xanuun ku beegan halkaas xudunta iyo laabtaxawda dhexdeeda ah ayaa qofka nabar saas u qabanaya labalabo iyo yalaaluga qofka mataqaan ay qabanaysa dibiro waxba adan cunin baad dibiraysa raashinka waa ka xidhmaya mararka qaarkood dhiig baad matagaysaa mararna adigoo aan mataginba dhiig ayaa saxaradaadu madoobaanaysaa haddaad mar aragto adigoo saxaradaadu ay madoobaatay waa calaamad khatara weeyaan dabcan dhakhtarku wuu ku weydiinaya haddaad dawooyin gaar aad qaadato saxaradu ku madooban karta iyadoo dhibaato aan jirin waxaa ka mid ah kiniinka feerada ee dhiigga kordhiya haddaad qaadato saxaradu way noqonaysaa madow bay noqonaysaa laakiin adoo kiniinkaa qaadan haddaad musqusha tagto oo saxaradaadu ay madowdahay dhiig baa ku furmay gastrointestinal tract-gaaga marka dadka gastriga qaba saxaradu marmarka qaarkood way madoobaataa waana calaamad culus weeyaan qofka oo miisaanku u dhaco mar haddii gastriga aad yeelato miisaanka u dhacayaa raashinka waad ka go-aysaa waad ka baqanaysaa dabeedna waad yaraynaysaa raashinka waad yaraysanaysaa miisaankaaga waa dhacayaa kadibna waxaa kugu dhacaya dhiig yaraan baa kugu dhacaysa haddii HB-gaaga la qaado dhiig waa kaa yaraanaya laba hal buu kaaga yaraanayaa intii aad qaadinaysay waad yaraysay waxay raashinka nafaqada lahaa dhiigaaga soo celin lahaa waad ka baqanaysaa qaarna waa ku dhibayaan haddii ay meel xoqontay ama uu jiro nabarkaasaa mataqaanaa ayaa dhiig beer dareynaya dhiiggaas wuxuu raacayaa dheefshiidka kaasaa saxarad madoobeynaya marka HB-gaagu marka dhiigga laga qaado dhiig yaraan buu mataqaanaa ayuu keenaya 10 calaamadood ayaa ugu muhiimsan mataqaana oo lagu garan karaa gastric lagu garan karaa xanuunada kale uurka jirta ah bil xaqiiqa waa ka sahlan yahay oo inkasta oo marka qofku dhiigga uu matago aan gastric quraan ahayn dhakhtar baad mar walba inaad tasto mar baa jirta calooshaadu ay fiican tahay haddana aad dhiig matagayso dhiiggaas wuxuu ka imanayaa mesela beerka dadka mataqaana beerku uu ku dhaco liver failure ama dadka ama alcohol aad u isticmaala ama cagaarshowga badantan ku dhaco ama cancer oo kale oo marka beerku uu gabo mataqaana hawshiisa waxa sameysmaya waxa la yiraahdo portal hypertension culays fara badan baa soo fuulaya mataqaana beerka dabeedna xididada hunguriga madow ayaa dhiigii mataqaana ku soo cadaadinaya beerku marka xididada baa mataqaana qofka qarxaya marka qofku dhiig matagaya haddii qofka la eego calooshiisa waa caadi weeyaan laakiin dhiiggaas wuxuu ka yimi beerkiyo mataqaana hawshiisa mataqaana ay gabay marka dabcan qof kasta oo dhiig mataga ma qaba gastric meelo kale uu ka iman karaa marka dhakhtarka ayaa fiican in lala tashado oo mataqaana la weydiiyo oo kala garanaya labada calaamadihiisa intaas horta ugu muhiimsan baarista waxaa laga gaaray iyana sidii hadda aan sheegayay maalan dawooyinka aan lahaa anti acidkii iyo waxyaabihii mataqaanaa qalliinkii iyo waxaa ka daba yimid dawooyin casri ah waagii hore baarista gastric waxa lagu sameyn jiray raajita qofka la saari jiray waxa la yiraahdo barium meal oo bahal nuurad oo kale oo cad ayaa qofka la cabsiin jiray garamaysan baa maranaya waa berigii hore mataqaan weeyaan 60meeyadii iyo kale 70meeyadii barium mealka qofkii waxaa la siinayaa 1 litir ama 2 litir oo barium ah bariumtu marka waa bahal cad oo nuurad oo kale qofkii uu cabaya markuu cabo ayaa la sawirayaa sawirkii baa dhakhtarku uu raajitadii buu ka eegayaa meeshii nabarka ahayd oo nusil noo kala ah ayaa ka soo baxaya halkaas uu ka garanaya dhakhtarku mataqaanayay in qofkii uu leeyahay ulcer uu leeyahay marka raajitaas oo waliba 100 interpretationkeeda ama tafsiirkeedu inta badan aanu sax noqon jirin ayaa lagu sameyn jiray taas marka la isticmaali jiray 50meeyadii 60meeyadii 70meeyadii ilaa 80meeyadii bilowgeedii 80meeyadii bilowgeedii waxa soo baxay waxa la yiraahdo endoscopy waa habay gastroscopy waa tuubo dheer oo afka kula mataqaana iftiin oo
qofka inta afka la geliyo hunguriga ay socoto ayaa calooshii la eegaya marka qofka tuubada la geliyo si fiican ayaa calooshii mataqaanaa loo wada arkaya caloosh marka la arko ayaa la arkaya haddii uu jiro inflammation ama onstaking ama hafeefasho iyo haddii uu jirto nabar iyo haddii kansar uu jiro oo kale matalan marka eegistii dhakhtarku eegay wuxuu ku daraya weliba cad baa laga soo goynaya cadka marka laga soo goyo waxaa la biopsy shaybaarka lagu soo baaraya in kansar uu jiro in onstaking uu jiro ayadaa mataqaanayay xitaa helicobacterka bakteeriyada waa laga helaya mataqaanaha marka baadhistiina waxaa ku dhacay يعني تطور وين أو revolutionary أو هالكي أي كأهد باري ميل أما راج تمتقنا يسكا عن واضح هين إندوسكوبي كان أو سفي حين مثلا لوجو أركيو أيام مثلا يبدلي وحصور عبارستا إن ديك مثلا يي قفك لقى قاعدو ديك ولا جه هي بكتيريا ده وحنقول نسمع مركز قال كل هذي قفك لقى شكيو dad baa jira ay dhibayso tuubadu way fiican tahay faa'iidooyin badanna waa leedahay laakiin waxay leedahay dhib bay leedahay oo ma qofku wuu matagaya oo dad baa jira dadku waa kala duwan yihiin qofna wuu adkaysanaya tuubadan afka laga gelinaya caloosha tegaysa dadna waxa jira xataa in cadayga mataqaanaa ay ku matagaan oo aanay kari karaynin marka marar fara badan haddii la arko mesela qofkeeni dhibayso oo helicobacter la baarayo helicobacterka waxa laga helaya dhiiga laga helaa saxarada laga helaa حتى يمكن دوانتا نافتا ميل بقفك وافوفيا نافتا ايام مثلا لغي هليا marka taas waa markii qofka aan tuubada mataqaan ama ay aan lagu sameyn karaynin ayaa laga heli karay marka baarista dhiiga iyo endoscopigaas ugu fiican dhakhtarka house artiska ah qayb weyn buu ka qaatay intaan specialistaha la gaarin oo مثلا vistada iyo taabashada danqashada mataqaan meesha ay danqanayso si fiican buu ilaa 90% u garan karaya in ay jirto mataqaana gastri marka baarista waxa ugu fiican tuubadaas ugu fiican tuubada waan maqlaa dad fara badan oo mataqaana ay faafid la geliyay dadku laba u kala baxaan laakiin badankoodu way dhibsadaan way leedahay waan sameyn jiray marka way arag baan ku ahay inta badanna waxa jirta dhibka ugu weyn wuxuu ka imanayaa marka qofka tuubada la gelinayo wuxuu u baahan yahay sharaxaad buu baahan yahay haddii qofku uu fahmo tuubada uu fahmo iyo fahmaadaas waxay siinaysaa deganaanshiyo haddii aanu fahmin qofkii uu yani wadidaya uu baqanaya waayo hunguri waxaan leenahay hunguri madow iyo hunguri cad tuubada marka qofka afka laga geliyo qofka cabsi baa gelayso wuxuu soonayaa neefta kugu xirmaysa marka dhakhtarku wuxuu u sharxay wuxuu oranayaa laba hunguri baan leenahay hunguriga cad iyo hunguriga madow tuubadan lagu gelinayo hunguriga cad ee neeftu ay marto shaqo kuma laha wuxuu marayaa hunguriga madow ee raashinku uu maro miyay ku dhibaysaa markaad xabad rooti aad liqayso waa maya tanna waa la mid marka wuxuu ku oranayaa ku talagal isdeji neefta kugu istaajin mayso hunguriga cad iyo sababka tegi mayso sidii bataan qof raashin cunayo kala mataqaanayay u arag haddii qof markaa uu fahmo waa degaya haddii laakiin aanu fahamsan dad baa xitaa gaara inay gacanta ku qabtaan oo iska soo mataqaan siibaan waayo waad baqanaysaa qofkii xuseen waad dhimanaysaaba neeftaa kugu ceshoomaysaa waa la suuxin karaa dad badan baa la suuxiyaaba oo keligaa maaha dad badan mataqaanaa waxaa la siinaya waxoogaa yaroo valium ama mataqaanaa ayaa lagu fardoofiya baa halkan lagu sameynaya qofka waa la caawiyaa mataqaanaa haddaad tidhaaho masalan waan dadaalaya anigu wixii waa fahamsanahay laakiin waa iga xoog badan tahay waxaa ibrada lagu mudaya waa ku dejinaysaa waad yar seexanaysaa markaa seexata ayaa lagugu sameynaya mataqaanaa marna spray oo kale mataqaanaa ayaa dhuunta si aanay kugu xadanteen oo aanad u batagin ayaa lagugu sameynaya marka baaristaasaa ugu wanaagsan laakiin dhibkaasay leedahay dad fara badan dadka badankiisa way dhibtaa in yar oo aan ku qiyaasayo boqolkiiba 10 boqolkiiba 20 ayaa dhici karta mataqaana inay aad ugu adkaystaan laakiin badanka way dhibtaa laakiin run ahaantii way u qalantaa oo waa baarista ugu fiican weeyaan boqolkiiba 100 wixii dhibaatay jira waa la arkayaa cad baa laga soo goynaya haddii kansar uu jiro waa la baaraya haddii helicobacter uu ku jiro waa la garanaya haddii uu jiro onstaking waa lagu garanaya marka mata kasta iyo si kastoo qofka u dhibayso natiijada mataqaana laga gelaya iyo fordeelka ayaa mataqaana ayaa aad u badan
waxaa isweydiin fiican ah maalan maadaama aynu fahanno iminka oo fikrad ka qaadanay gastrigii iyo alsarkii goorma ayaa ay habboon tahay qofku inuu u tago house artistka goorma se ayay tahay mataqaana weli qof odhan karaa malaa uma baahni waayo gastrigii sawirkaa guud markaan ka bixiyay laakiin dadna khafiif buu ku tahay acid iyo xanuunkii qofna aad bay ugu dhib badan tahay marka goorta aad u tegeyso dhakhtarka waxa weeyaan maalan haddii xanuunku waxaan ka hadlaya qofka cusub ee mataqaana marka gastriga ka shakisan haddii xanuunku maalan muddo 2 usbuuc ka badan uu ku hayo oo 2 usbuuc aad aragto halkaas in laga degan yahay dhabarku ku hayo hal maalin iyo 2 waxa fiican inaad house artistka aad ku degdegin wixii waa la baxnaaniyaa caadiyan guud ahaanba si guud ilaa 2 maalmood 3 maalmood haddii aan ahayn wax khatar ah maalan nafta aad baqanayso 3 maalmood baa la sugaa waayo marar fara badan xanuuno badan baa jiro oo mataqaana aan serious ahayn oo intay maalin ku qabtaan iska kaa tegaya haddii xanuunkan gastriga aad aragto maalan xanuunkii bog xanuunkii oo 2 usbuuc gaadhay waa inaad dhakhtarka u tagto haddaad aragto in markii hore si tartiiba lagu qabtay oo uu ka soo yardaray oo ka soo daray oo ka soo daray oo ka soo xumaanayo iyadana way u tegaysaa house artistka haddii xanuunku ku sii daayo aad kala daato oo haddana muddo kadib 2 usbuuc kadib ama bil kadib kugu soo noqdo ku sii daayo haddana 3 bilood kadib kugu soo noqdo iyadana mataqaana way u tegaysaa haddii saxaradaada aad dareento oo aad aragto inay madowdahay iyadana way u tegaysaa waa calaamad culus saxarada madow waxa weeyaan waxaa jira mataqaana ayay dhiig bax mataqaan gudaha ah oo qofku aanu dareemeynin qofku aanu dareemeynin marka marxaladahaas mataqaana ayaad ugu tegaysaa ayay dhakhtarka laakiin haddii ay tahay maalan laabtiyax yaroo iska fudud ma laha mataqaana waayo iyada lafteeda way habboon tahay oo haddii kale cabsi baa ku gelaysa haddaad markii meel ku xanuuntaba aad dhakhtarka ku cararto dhaqan ahaan baana kuu fiicneen caafimaad ahaan baana kuu fiicneen culayska aad saarayso mataqaana dhakhtarkii baana ugu fiicnayn laakiin haddii 2 usbuuc gaadho haddii wixii joogto noqoto hadday soo noqnoqoto ayaad ugu tegaysa iyo haddii saxaradu mataqaana midabkeedu uu isbedelo baadhista haddii la sameeyo waxa qofku uu ka fekeraa inta badan ama inta yani daaweynta ayaynu inagu saarnaa culayska oo waxa aynu leenahay maalan dhaqan iyo caado qofku markuu xanuunsanayo dadku labay u kala baxaan qof wuxuu jeclaystaa oo doona inuu ogaado sababta keentay waxan maxaa keenay halkee baa ku xanuunaysaa muxuu yahay waxaan hayaa ma khatar baa ma fudayd baa markaa qofkii wuxuu jecel yahay dhakhtarka inuu 4 liqtin iyo 2 liqtin uu kala soo baxo dadka badankiisuna weliba khaas dadka la nool taasi jecel yihiin qofna maba doonayo sharaxaadaasi wuxuu ku leeyahay dawo xanuunka iga biisa si waxba ma baahni meesha haysa inaan ogaado adaa dhakhtarkiya dawadii uu sii dabadna xanuunkii mataqaana hay sii daayo ya saan u badanahay caynkaa way ahaa laakiin waxa fiican qofku inuu ogaado inuu dhakhtarka weydiiyo yani waxan waxay yihiin leanno madaxaaga maskaxdaada iyo fikirkaaga ayaa kuu degayo wixii waxay noqonayaan waxaad garanayso maskaxdeenu way ka baqataa majhuul haddii wax aad garanaynin maskaxdu reaction bay bixinaysaa cabsi weeyaan ma garanayso haddii laakiin wixii aad garanayso maskaxdii waa yara mataqaana waa degaysaa oo waad yara mataqaana waad cabsi badan mataqaana yeelan maysidaad marka daaweynta waxa ugu horeysa qofku inuu fahmo xanuunkii mataqaana sida uu yahay haddii aad fahanto stress badan baa kaa yaraanaya cabsi fara badan baa mataqaana kaa baxaysa kadib marka waxaa loo gelayaa daaweynta gastriga guulo weyn baa laga gaadhay waxaa lagu daweeyaa dawooyin aad iyo aad u ah waxtar u ah oo qofka batanka ka jebinaya waxaan filayaa in dadka badankiisu ama qaarkeeda garaysa omeprazole oo kale iyo pantoprazole iyo mid ayaa gastriga caadiga lagu daweeyaa maaha inagoo qura xataa dadkan European dadka guud ahaan aad buu ugu badan yahay oo waxaa keenaysa waagii hore firquudin baa la bixin jiray oo wax alla wixii gastriga loo qaato oo dhan apotheka tegaysa oo ka soo qaadan jirtay waxaan filayaa muddo imika 2 sano 3 sano meelahaas ah firquudin baa mataqaana ayaa marka waxa weey isbedelay waxa weeyaan caymiskii culays badan baa fuulay oo dadkii oo dhan baa house artist ku soo wada qoray omeprazole iyo pantoprazole marka
lacagtii baa ku yaraatay caymis marka waxaa la yidhi firkuuninka mataqaanaa ha laga saaro oo qofku mataqaanaa iska bixiyo iyadoo marka waxay keenaysaa in dad fara badani ay xanuunkii ay qabaan waxaa kaloo ay ku tusaysaa roolka dowrka uu ka qaadanayo mataqaanaa ayay fiirsay karinka uu ka qaadanayo caafimaadkeena iyo lacagta aynu bixino iyo mataqaanaa iyadoo lafteeda ay fiicanta inaad ogaato mataqaanaa marka caafimaadkii bay culays ku noqotay marka caafimaadku culus fiirsay karinka bay culays ku noqotay maadaama dadkii dad waagii hore mataqaanaa ayay iska celin karin dadkii waa u batay marka doctor wuxuu haya su'aashii waxay noqonaysaa marka wuxuu haya dulsa waxyaamaha kan waxyaalaha aan la yaabayno mataqaanaa oo aslahayn defarse karin kuma bixiyo daawadan oo lagu leeyahay maya tan waa iibsanaysaa halkaas ka timid haya offer lak baa jira guud ahaan baa jira haya joojinayaan ay ku soo ilaa 6 bilood ka hor xitaa mataan way sii jiraan waxaa kaloo la mid ah markaan dhamayno ayaynu su'aalaha qaadi doonaa waxaa kaloo la mid ah imka masalan dawooyinka la yidhaha benzodiazepinska kuwan lagu seexdo ama dadkan baqaha ka celiya mataqaanaa berigii hore firkuunig caadi baa mataqaanaa loo soo qaadan jiray muddo imka 4 sano meelahaas 5 sano mataqaanaa waa laga saaray waayo dadkii baa mataqaanaa kiliinkii hurdada aad iyo aad ugu batay marka caymiskii waxaa saarmay mataqaanaa wuxuu ku bixinaya lacag milyaar mataqaanaa ayaa kaga baxaysa marka dawooyinkaasaa ugu muhiimsan waxaa jirta haddii lagaa helo helicobacterka bacteriada lagaa helo helicobacter pylori lagaa helo dawadan ku anfici mayso waxaad u baahan tahay inaad antibiotic 2 ah oo weliba dose aad iyo aad u sareeya in lagu siiyo kaasaad muddo 7 aad qaadanaysa dadka qaar baa jira haddii aanay ogsooneyn ku wareera waxyaaba aan daruuri ahayn oo marka kuurada uu qaato usbuuc ah ayuu isjagareeyaa bil kadib markaasuu arkaa in uu positive yahay qofkii niyad jab baa ku dhacayay cabsi markaasuu dhakhtarkii dib ugu noqonayaa dawada markaad qaadato 1 sano ayaa dhiiggaa haddii lagaa qaado iyadoo jeermiskii kaa baxay positive sii noqonaya marka isma controli kartid bil kadib iyo 2 bilood kadib 1 sano kadib baad controli kartaa 1 sano kadib ayay ka baxaysa mataqaanaa marka dawooyinkaa aan sheegay omeprazole pantoprazole iyo tan la yidhaaho pantobac ee helicobacterka ah inta badan 99% way daweynayaan mataqaanaa gastriga intaasoo qura ah ma daweynayso dhakhtarku wuxuu soo raacinayaa talooyin badan oo aad iyo aad muhiim u ah talooyinka uu dhakhtarku kusoo siinayo bogsiinta qayb bay ka qaadanaysaa sii raagidda xanuunkana qayb bay ka qaadanaysaa waxaana ku xidhan tahay sida talada dhakhtarka aad u qaadato way badan yihiin 7 ugu muhiimsan mesela haddaad soo qaato qofku hadduu sigaarka cabo waa inuu sigaarka joojiyo waayo cilaaqaad toosa ayaa ka dhexeeya nikotiinka iyo acid mataqaanaa productionka haddii qof markuu sigaarka cabo nikotiinkaasu waxa uu stimulate garanayaa centriska mataqaanaa maskaxda dabeedna hydrochloric acid badan ayuu qofku u soo deynaya dadka aan daweyn jiray dad badan aan aqaanay way yaqaaneen oo qofku haddii uu sigaar caroodo markuu caroodo oo sigaar badan uu cabo waa nabar ku bataa waa qaban jiray marka talada ugu horeysa waxa weeye sigaarka jooji haddii qofku uu sigaarka cabo talada labaad waxa weeye cuntada dufanka leh ha cunin yare uma wanaagsan mataqaanaa gastriga ta saddexaad waxa weeye basbaaska iyo sinjibiisha waxyaabahan crowdka oo masalan badankeeda magacooda aan garanaynin mataqaanaa muuqaalkooda qura aan garanayo inaad joojiso inaguna u badanahay haylka sinjibiisha qorofolka waxyaabahaasoo dhan mataqaanaa way kicinayaan gastriga qaar baa ka reeban oo dhakhtarku waa ku weydiinaya berihii hore waxaa jiri jirtay in dadka loo qori jiray wax la yidhaaho diet oo matalan waxaa jira dieta in bianco ayaa lagu yidhaahaa af talyaaniga oo loolan jiray qofka gastriga qaba boorash ha la siiyo boorash baa la siin jiray iyo rooti yaroo cad iyo baasta cad iyo bariis yaroo cad baa la siin jiray waxaa la ogaaday 70-yada dhammaadkeedii in ay jiraan 2 qof oo labadaba gastri qaba oo midna uu ku kicinayo mataqaanaayay boorashkii lagu daweynayay baa ku kicinaya gastrigii xanuun ku kicinaya marka waxay noqotay dawada ugu fiican in qof kale yiraahdo maxaa ku dhibaya wixii ku dhibaya ay joojinaysaa kafeega canjeerada hilibka waxa shiila wixii ku dhibaya ay joojinaysaa marka waxa meeshii ka baxday liiskii uu dhakhtarku ku soo qori jiray ayaa ka baxay maxaa bedelay waxa bedelay in la yiraahdo mataqaana maxaa adiga ku dhibaya maxaan ku dhibaynin
oo taa aad yaqaan mataan wixii ahaa waayo waxa la arkay laba qof oo labadiiba mataan ay wada qabaan gaastirigi in qofna ay dhibayso kan kalena mataan ay aan dhib qof bas cunaya hay qof ku daweynaya hay inta badan waxa fiican oo duurta qofku inuu istirso talada ugu fiican waxa weeyaan wixii aad aragtay inay ku dhibayso ayay joojinaysaa waxa kale oo tala fiican ah in qofka gastrigu hayso khaasatan inta ay ku cusub yahay in cuntadiisa wax ka bedelo oo mesela 5 jeer baa qofka wax la siiyaa halkan caadiyan 3 jeer dadka ay cunaan quraacda iyo qadada iyo cashada waa laga bedelaa 5 jeer oo aad iyo aad u yar ayaa la siiyaa ayaa qofka bataan cunaya subaxii barqadii duhurkii casarkii iyo maqribkii oo kale marka saxankii weynaaye mesela qof caadi u cunaya ma taqaanaa waad ka yaranaysaa ama nus baad cunaysaa ama 3 meelood meel baad cunaysaa ma taqaan marka 5 jeer ayaa fiican oo markiiba in yaroo mataan boorti yar aad cunto waa tala dad badan aan raacin laakiin ugu fiican ma taqaan caloosh baa culays badan ka degaya natiijo fiican waa laga gaaraya waxa kale oo iyana muhiim ah oo dadka u dhuunta inta badan in dawooyin baa jira kiciya gastriga sababana gastriga dadka badankiisu aan aqoonin waxa ugu horeeya asparooga waxa ku xiga ibuprofenka waxa ku xiga diclofenac waa dawooyinka guud ahaan kaarjabinta wixii aan paracetamol ka ahayn oo dhan xuubka caloosha ma taqaan wuu xoqaya qofkiina haddii aanu garanaynin xanuunna uu hayo dabcan kaarjabin buu doonaya kaarjabintu doonta paracetamolku ma taqaan waa ka ugu yar weey ma kiciyo gastriga laakiin kuwan kale oo dhan soo markin kulli way kicinayaan ma taqaan waa kicinayaan ibuprofenka diclofenac kaarjabin oo dhan ma taqaan way kicinayaan dadkuna dad badan baa jiro xitaa ku afeer staff kaarjabin inta ma taqaanayo cunaya ama u cunayaba jilbaha lafaha muruq xanuun meel kale u cunaya marka laakiin wuu keenaya haddii uu hore u qabayna wuu ku kicinaya haddii aanu qabinna oo qofku laakiinse uu joogtaysto dad badan baa jira joogtaysta wuu ku kicinaya gastriga oo qofkii markuu asparoo cunaya ma taqaanayay sanad 2-3 sanadood ama way jira dad badan ma taqaana ama 3 sano ma taqaan ibuprofen cunayaan gastric baa mataa ku dhacay wuxuu xoqayaa caloosha xuubkeedii waxa fiican marka haddii mesela ama ha noqoto rheumatism ama ha noqoto lafa xanuun haddii xanuun uu ku qabto paracetamolka ayaa ugu fiican ma quwad badna laakiin calooshii baanu ma taqaan waxba yeelaynin waxa kale oo jirta ta ugu yana muhiim ah laakiin dad badan oo waliba reer magaalo mutacalimiin ay garanayaan waxa weeye stresska qofku iska yareeyo stresska lama yareyn karayo oo marba noloshii bini aadamka waxa weeye abana mataweeye hooqa aysan ba qof walba wuxuu doonayaa wixii aanu awoodi karin ama heli karaynin ayuu doonayaa marka stress halkaas keenaysa waad ka sii badinaysaa family caruurtii shaqadii dhaqaalihii reykani waxyaabo fara badan baa ma taqaanayay keenaya stresska laakiin talada ugu fiican waxa weeye ma joojin karaysid bal inaad yareyso ma taqaanayay stressku kuwa xitaa wax haysta ee qaniga ah waa ku dhacaya meel kale ka sii weyn buu doonayaa meel kale kaga furan tahay kii faqiirka ahaa isagiina waa ku khasban yahay wax la tiri karay bataan fakar iyo warwar iyo hami bini aadan oo dhan baa ma taqaanaa ayaa leh inkastoo kala badan yahay laakiin door weyn bay ka qaataa gastriga stresska hadduu ku badan yahay uu ku kicinaya acid waxa kale oo yana tala fiican ah in habeenkii aad ku seexato 2 barkin way yareynaysaa ma taqaanaa gastriga khaasatan noocan hunguriga madow ee laabjeexa marar waxaa jira caloosha iyo hunguriga madow meesha ay iska soo galaan sphincter meel isxidha oo yar dabcaysa oo qofka marka uu dareemay marka uu seexdo ayuu ma taqaanaa laabjeexu ku soo kacaya marka qofka habeenkii oo seexan maayo laakiin hadduu qofku 2 barkin ku seexdo Soomaalikin oo marka hungurigii madooba iyo laabtii ay ka sarreyso caloosha nafs buu ka helaya ما عادي عادي بكرسة هي وصلنا هدي كلام حسبين السايو أنا سرير تاذا أياد لبعض متى ماذا حسبان كن أياد هوس كوي كذا أياد كجلني سايو وحوجا يرو مثلا سوت إنه قطعها أو جور يا إن عروس هوسيسو إن عروس هوسيسو dad fara badan markiiba mataan laabjeexa ay ka beenaysaa 2 barkinaad mataan marka aad habeenkii seexato ayaa ku seexato ayaa nafs badan ku siinaysa
qaab nololeedka مثلا waxaa ka mid ah dabcan innaga dhaqankeena iyo diin iyo bulshadeenna uma badna alcoholka wuxuu ku leeyahay isagana mataa waxa weeye waa factor weyn oo kiciyo waa ku leeyahay xuubka caloosha mataa waa gubaya dadka marka isticmaala way yaqaanaan ninka gastriga qaba waa aad iyo aad buu ugu daran yahay warkiiba talada ugu horeysa dhakhtarku waxa weeye inuu qofku joojiyo alcohol iyo waxa ku jirto oo dhan uu joojiyo lifestyle-ka waxaa kaloo ka mid ah inaad مثلا aad khasoon miisaankaaga aad yarayso aad samayso مثلا waqti fiican aad seexato aad ku dadaasho mataqaanaa مثلا habeenkii waqti go'aan oo mucayana inaad seexato marka noloshaada ka dhigto مثلا nolol caafimaad qabta oo aad ka dhigto way caawinaysaa digestionkaaga iyo dheefshiidka marka intii ugu muhiimsaneed waa ballaaran yahay mataqaanaa gastriga waxaa kaloo jira xanuuno kale oo ay isu eg yihiin oo laakiin aanay shaqo isku lahayn ka tan aan sheegayo kale مثلا beerka oo kale oo dhiig aad ma tagayso qofkii aad taqaanay family hadduu dhiig ma tago adigu markii wax waa gastrig laakiin ma aha haddii uu beerka مثلا la'aayo kale ka iman mayso kansarka laftiisu waxa uu leeyahay calaamadaha iyo astaamaha mataqaanaa gastrig ayuu leeyahay oo marka qofka kansarka caloosha ku dhaco inta calaamado imika aan sheegay oo dhan ayuu isaguna u leeyahay marka iyadoo kansarku haya waxaad la oranaysaa mataqaanaa gastrig baa mataqaanaa haya marka waxay fiican tahay inaad markiiba dhakhtar u tagto tuubada lagu geliyo cad yar la soo gooyo cadkii la soo gooyay biopsiga ha marka lagu yidhaaho على الأقل تكسر ما قبتين مركز هذا تعالي كرساية هذا لكن سه تراهو جاستي ومضح حاد قصته حد يكرت كانسر الأقل لها متقانا إنه كود وانتو أو مركز جرب تانا هي كل أسبوع على مدوي أنت يمكن أي شيء يولي كانسر كنا متقانا بوقع على قبنا يو مركز كل قاعد متقاسو سحرة أمدو أنت على مدى جاستي يقولي يسكون ميزان ما هم متقانا كانسر يو جاستي مركز waxaa fiican inaad baarista aad ka gaban mataqaan dad badan baa jiro ka waasada ama ka baqaba mataqaan in wax khatar lagu sheego mataqaan laakiin waa fikir aan wanaagsaneyn mataqaan weeye marka maanta intaas ay nagu soo kabaya wixii su'aal ah